Zanzibar waxaa lagu naanaysaa Andalustii Afrika awooddii ay lahaayeen jasiiradahani xilli ka mid ah xilliyada awgeed. waxaa lagu tirin jiray ciidamadeedii badda ciidamadii labaad ee ugu awoodda iyo cududda badnaa marka laga yimaado Ingiriiska, waxayna ka awood sareeyeen gumaystayaashii u soo hayaamay Afrika si ay u gumaystaan sida Faransiiska iyo Boortaqiiska. waa dhul aqlabiyadda dadkiisu yihiin Islaam, alla ku galladay dhul aad u bilic qurxoon sida dalalkii Afrikana kama magan helin gumaystihii reer galbeedka oo ka geystay dhulkooda mid ka mid ah xasuuqyadii ugu foosha xumaa ee loo geysto dad Islaam ah. waxaa hal habeen la galaaftay nolosha ku dhowaad 20,000 oo qof oo ka mid ah dadkii degi jiray Zanzibar. waxaa la bedelay dhaqankoodii, sidoo kalena la cirib tiray luqadoodii Carabiga ahayd iyadoo lagu bedelay Sawaaxili. laga yaabaa inaad in badan maqashay magaca Zanzibar ama Zanzibar, laakiin ma garanaysaa daawade taariikhda la yaabka leh ee uu xambaarsan yahay dhulkan Islaamka ah ee lagu naanayso inuu yahay jannadii Afrika. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaal aynu ku lafaguri doonno taariikhda daahsoon ee ay leeyihiin jasiiradaha Zanzibar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inteenan u gelin muuqaalkeenna, haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad nagu soo biirtid oo aad taabatid calaamadda subscribe, sidoo kalena aad shidatid gambaleylka si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaaladeenna cusub isla goorta aynu soo gelinno. haddii uu ku qanciyo muuqaalkuna, ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada. mahadsanidiin. aynu u galno muuqaalkeenna maanta. jasiiradaha Zanzibar waxay dhacaan badweynta Hindiya, waxayna ka kooban yihiin jasiirado dhowr ah oo hoostaga dalka Tanzania. jasiiradahan ayaa leh ismaamul u gaar ah oo madax bannaan, waxaana lagu qiyaasaa baaxaddooda 2,461 kilomitir. waana jasiiradaha labaad ee ugu baaxadda weyn Afrika marka laga yimaado jasiiradda Madagaskar. jasiiradahan ayaa ku yaala goob istiraatiiji ah oo ka dhigtay gumaystayaashii reer galbeedka kuwa u soo kala tartama gacan ku dhigiddeeda, waxayna u arkayeen in qofkii maamulay jasiiraddan uu gacanta ku hayo isku socodka xeebaha bari ee qaaradda Afrika. sidoo kalena waxay ahayd biriijka isku xira xeebaha Afrika iyo jasiiradda Carbeed, taasoo micno kale u sii yeeshay jasiiradahan. waxay sheegaan taariikhyahanadu in jasiiradaha Zanzibar uu gaaray Islaamku sannadkii 65aad ee Hijriga. sidoo kale waxaa jira taariikhyahano kale oo sheegay inuu gaaray sannadkii 74aad ee Hijriga, waxaana la sheegaa in cidda soo gaarsiisay Islaamka dhulkaasi ay ahaayeen Cumaaniyiin ka soo qaxay dalka Cumaan kadib dagaal dhex maray Cumaaniyiinta iyo hogaamiyihii caanka ahaa ee Xajaaj bin Yuusuf, taasoo ka dhigtay kuwo badan oo ka mid ah Cumaaniyiinta kuwo u qaxa jasiiradahan. waxaana halkaasi ka bilowday inay Cumaaniyiintu ku faafiyaan dadkii deegaanka ahaa diinta Islaamka, wuxuuna ahaa xiriirka ka dhexeeya Cumaaniyiinta mid sii xoogaysta, waxayna ka noqdeen tirada dadka Islaamka ah dadkii deegaanka ee deganaa jasiiradahaasi 70%, waxayna ku noolaayeen nolol isfahan ah oo ku dhisan isjacayl iyo walaaltinimo ka hor intaysan soo gaarin dabashii gumaystaha oo xilliyadaasi ruxaysay Afrika. waxaa dhacday in sannadkii 1449 miilaadiga uu soo maray jasiiradahan badmaaxihii la oran jiray Vasco da Gama oo xilligaasi ka soo noqday safar uu ku aaday Hindiya. Vasco da Gama uu sii dhaafay Zanzibar, laakiin 11 sano kadib hayaankiisan waxay ku warheleen hal mar duulaan arxandarro ah oo ay si kadis ah ugu soo qaadeen doomihii gumaystaha Boortaqiisku. ciidamadii Boortaqiisku uma meeldayin dadkii deegaanka ahaa ee ku noolaa jasiiradahaasi, balse qof walba oo ay ishoodu qabatay way sii dileen. waxaana la sheegaa in mid ka mid ah odayaashii jasiiradda oo dhambaal u diray jasiiradihii dariskooda ahaa isaga oo uga digaya musiibada ku soo socota uu ku qeexay xaaladdii ay ku sugnaayeen inuusan ku harin jasiiraddooda hal qof oo nool haddii ay ahaan lahaayeen rag, dumar, carruur iyo cirolaba. wuxuuna raaciyey in qof walba oo awoodi waayey inuu lagihiisa ku baxsado uu noqday qof la dilay ama la gubay isagoo nool. kadib duulaankaasi waxaa gacanta ku dhigay maamulkii jasiiradahan boqortooyadii Boortaqiiska oo xukumaysay ku dhowaad 2 qarni, ilaa ay timi maalin ay ku midoobeen dadkii deegaanka ahaa ee ka haray dadkii degi jiray jasiiradahan ee uu xasuuqay Boortaqiisku, waxayna u bahoobeen si ay gurmad u weydiistaan suldaankii xilligaasi ka arrimi jiray Cumaan,
maxaa yeelay sida aynu horey u soo sheegnay waxaa jiray dad ka soo jeeday saldanadda Cumaan oo u soo qaxay jasiiradahan kadibna ay deegaan u noqotay. Suldaankii Cumaan wuu ogolaaday codsigoodii wuxuuna diyaariyey ciidan xooggan oo uu u soo diray si ay dib ugu soo celiyaan jasiiradahan gacanta dadkeeda oo u badnaa dad Islaam ah. Kadib dagaal xooggan oo dhex maray ciidamadii Cumaaniyiinta iyo ciidamadii Burtuqiiska, waxaa dhacday in Cumaaniyiintu ay ku gacan sareeyeen dagaalka si gebi ahaanna uga ciribtireen gumaystihii Burtuqiiska jasiiradahaasi, waxayna sidaasi ugu soo noqotay Zanzibar mar kale gacantii muslimiinta. Waxaa ka curtay jasiiradaha Zanzibar kacdoon aqooneed oo lagu dhisayey aqoonta dadka deegaanka, laguna barayey diinteenna suuban iyo Quraanka. Waxayna sii xoogaysteen dadaaladani kadib markii ay la wareegeen xukunka saldanadda Cumaan qoyska loo yaqaano Abu Saciid oo ilaa maanta ka arrimeeya Cumaan. Waxayna isku beddeshay Zanzibar mid martigelisa aqoon-yahanadii diinta ee ku sugnaa deegaanadii dariskooda ahaa, waxayna dadku u soo doonan jireen barashada Quraanka iyo culuumta diinta. Ma malaysan kartaa daawade in goobihii lagu baranayay Quraanka ee ka jiray jasiiradahaasi la oran jiray ama looga yaqaanay dugsi Quraan, waana isla magaca looga yaqaano goobaha Quraanka gobollo badan oo Soomaaliya ku yaala maanta. Waxaana ka soo baxay culimo magac iyo maamuus ku dhex yeeshay deegaanadaasi oo ugu caansanaa Maxamed bin Cali al-Mandari oo ahaa garsoorihii xilligii uu talin jiray Suldaan Maajid iyo wiilkiisii Suldaan Yuusuf bin Naasir. Waxay ahaayeen jasiiradaha Zanzibar kuwo hoostaga saldanadii Cumaan qarniyo badan kuna nool xasilooni iyo deganaanshiyo ilaa laga soo gaaray dhammaadka qarnigii 18aad, gaar ahaan 1891 miilaadiga. Xilligaasi oo Ingiriiska oo cabsi ka qabay cudurda sii kobcaysay ee ay lahaayeen ciidamadii badda ee jasiiradaha Zanzibar gacanta ku dhigeen maamulkii jasiiradan, waxaana door weyn ka ciyaaray in Ingiriisku ay gacanta ku dhigaan jasiiradahan khilaafaadkii ka dhex curtay salaadiintii saldanadii Cumaan. Wuxuuna Ingiriiska oo ka faa'iideysanaya khilaafkan oo ku dhawaaqay inuu gacanta ku dhigay Zanzibar, wuxuuna u talinayay jasiiradahaasi 70 sano oo xiriir ah. Gumaystahani kuma guulaysan inuu ka dhigo Zanzibar mid ka go'da saldanadii ay xiriir ka diimeed iyo siyaasadeed wada lahaayeen ee Cumaan ka hor intaan la soo gaarin 11 bishii koobaad sanadkii 1963. Maalintani ayaa noqon doonta maalin aan ka tirtirmi karin taariikhda Zanzibar. Waxaa dhacday in habeennimada maalintaasi uu ka geystay Ingiriisku jasiiradaha Zanzibar xasuuqii ugu foosha xumaa taariikhda ee uu geysto Ingiriisku. Waxay habeenkaasi galaafteen nolosha ku dhowaad 20,000 oo qof oo ka mid ah dadkii Carabta ahaa ee ku noolaa jasiiradahani, waxayna habeenkaasi si gebi ahaana u soo dabargooyeen joogitaankii Carabta ee dhulka Zanzibar. Wuxuuna Ingiriisku xasuuqan uga dan lahaa siyaasadiisii ku dhisnayd kala qaybi aad hogaamisidee oo uu ku kala qaybin jiray ummadaha uu gumaysanayo si aysan u dhicin inay u midoobaan oo ay ka dhiidhiyaan gumaysiga. Wuxuuna isku diray dadkii deegaanka ee markii hore sida walaaltinimada leh u wada deganaa. reer galbeedku tan iyo intii ay garteen jiritaanka qaarad la dhaho Afrika waxay caadaysteen inay ka dhex xuriyaan dadkeeda khilaafaad iyo colaadiyo ay ku doonayaan inay ku boobaan hantideeda oo alle ku galladay. nasiib darrana way ku guulaysteen oo ilaa maanta laga soo bilaabo xilligii gumaystaha ilaa qarnigan aynu ku jirno ee uu adduunku ku tartamayo tiknoolajiyadda iyo samaysashada hubabka casriga ah. Afrika waa qaaradda hantideedii laga dhisay saraha dhaadheer ee ku yaala New York iyo Paris, dadkeediina ay gaajo iyo tahriib u dhimanayaan iyagoon marnaba isweydiinayn sidee qof ila faac ah u dadguraysan karaa hantideeda anigoo ka qatan. Kadib dhacdadaasi waxaa lagu daray Zanzibar deegaanka Tanganyika, waxayna isku noqdeen dalka Tanzania ee aynu maanta naqaano sanadkii 1964. maanta Zanzibar waxa ku yaala dhulkeeda ku dhowaad 300 masjid, waxayna weli markhaanti u tahay taariikh aad u qurxooneed oo uu ku lahaa islaamku dhulkaasi. haddaba muuqaalkan ka hor maxay ahayd xogta aad ka taqaanay daawade ama aad ka aaminsanayd jasiiradahan? noogu reeb jawaabtaada komentiyada hoose ee muuqaalkan. haddii aad halkan soo gaartayna ha ilaawin inaad leeg noo saartid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.